السلام الله عليكم ورحمة وبركاته جمعة كريم صباح وناكسن ميل والبا نقطة ونيسان كسو دوادا وركو قدام بي هذا محا عصب قريال عصب ولقو بدبادين هايو من نمدا إيا وذا جيركا إيا دولة نمدا الصوماليات أيا لوغا دواقي مقالة مقدشو إي عاصمة الصوماليا قرياشان أيانا اسكوكو جيرا لبدا أقل إي برلمانكا دولة فدرالك الصوماليا وأقل كاسري إي قراها السنة كايا سيدو كاليتو golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa ayna sheegeen xildhibaanada golahaasi ku midaysan ee go'aanka soo saaray in ay u istaageen badbaadinta iyo wadajirka iyo dowladnimada Soomaaliyeed oo god mugdi ah ku sii dhacaysa iyo sidoo kale to siyaasadda guracan ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya uu ku hogaaminayo dalka xildhibaanada labada gol ka kooban waxa ay sheegeen in ay iyagu iskood u istaageen dhaqaale aysan ku raadinaynin xilal iyo masab aysan ku raadinaynin isla markaana ay u adkeysan waayeen dalka Soomaaliyeed meesha uu ku dhacay halka uu ku socdo hogaamin xumada siyaasadda qalafsan ee guracan dalku ku sii kala tagayo cadawga soo weeraray siyaasadda ay waxa weeye aragtiyaha kala duwan ee isdiidan inay arintaasi markay arkeen ay u istaageen badbaadinta ummadda Soomaaliyeed dowladnimadooda wadajirkooda sharaftooda iyo waxa way wada midnimadooda inay u istaageen badbaadinteeda hadaba golahaasi cusub ee labada gole ee baarlamaanka ay ku midaysan yihiin ee iskood isku xilqaamay ee go'aanadaasi soo saaray maamuladee ayay ka soo jeedaan maxayse ka bedeli karaan siyaasad xumadan iyo hanaanka guracan ee dalka uu ku socdo iyo sidoo kale to dhaliilahan ay u jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qodobkeena koobaad ayaan ku eegi doonaa qodobkeena labaad maalmihii ugu dambeeyay hadal hayn weyn ayaa ka dhalatay saldhig dhinaca cirka oo Turkigu uu ka sameysanayo hawada Soomaaliya ama saldhig weyn oo laga maamulo balastiga gantaalada balastiga ee hawada Turkigu 2021 ayuu arintaasi ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi ayaana ku dhawaaqay waxayna sheegeen in Turkigu sida ugu dhaqsiyaha badan uu gaari doono hawada sare oo markaasi saldhig uu ku yeelan doono hadaba Turkigu waxay doonayaan oo qorsheynayeen maalmihii ugu dambeeyayba oo wada hadaladeedana Soomaaliya uga socday in saldhigaasi uu Soomaaliya noqdo isla markaana uu noqdo saldhiga ugu weyn Afrika ee laga hago gantaalada balastiga hawada hadaba arintaasi saameyn inteedan ayay Soomaaliya ku keenaysaa maxay tahay sababta Turkigu ugu doortay Soomaaliya maxay ka faa'iideysaa oo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodu maxay ka faa'iideeyaan dawladda federaalku ma u ogolaatay haddii ay u ogolaato maxaa dhici kara waan dul istaagi doonaa iyadana soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay shalay golo cusub oo labada gole ee baarlamaanku ay ku midaysan yihiin waa golo nabadeyn ah ayagu isxilqaamay isku xil saaray inay wax nabadeeyaan isku xil saaray inay dowladnimada badbaadiyaan isku xil saaray inay siyaasadan guracan isdiidan ee dalkeena uu ku socdo inay wax ka bedelaan ayaa magaalada Muqdisho looga dhawaaqay waa xildhibaano labada gole ka kooban weeye labada gole ka kooban yihiin waa sanadka aqalka sanadka iyo aqalka golaha shacabka labadaas bay ka kooban yihiin waa xildhibaano tiro badan waxay ku dhawaaqeen in golahan muddo laga soo shaqeynayay 14 qodob ayayna soo saareen oo kulankoodii iyo shirkoodii jaraa'id ee ay ku qabteen magaalada Muqdisho ay ka soo saareen waxay sheegeen goluhu oo ugu muhiimsanaa in dalkeenu maanta uu god mugdi ah ku sii dhacayo marba marka ka dambeysana uu ka sii darayo ummadii la iska horgeeyay siyaasad qalloocsan dhanay u socota la garanaynin dawladnimadii burburinaysa midnimadii burburinaysa wadajirkii burburinaysa ummadii Soomaaliyeed iyo isku keenkeedii iyo duntii u dhaxaysay kala goynaysa maamul goboleedyadii si kala fogeynaysa dawladda federaalka inuu dalkeeni uu ku socdo sidaas awgeedna ay go'aansadeen inay u istaagaan badbaadinta wadajirka dawladnimada ummadda Soomaaliyeed xildhibaanadan say iyagu marka u hadlayaan lama dhihi karo waxa soo dirsaday Xasan Sheekh Maxamuud lama dhihi karo waxa soo dirsaday Xasan Sheekh Xamza Cabdi Barre lama dhihi karo waxa soo dirsaday Farmaajo iyo Sheekh Shariif waa xildhibaano qabiil walba ku jira maamul walba ku jira waa xildhibaano labada aqal bay ka kooban yihiin
dhinacay hadda ay si toosa u dureen oo ay sheegeen ma jira waaqaca taagan iyo dalku meesha uu kusii socdo bay ka hadleen. waxay sheegeen marka inay muddaba kasoo shaqaynayeen golahan uu ku midaysan yahay nabadeynta ummadda Soomaaliyeed, dowladnimada ummadda Soomaaliyeed ilaalinteeda, iyo sidoo kaleeto in waxa dowladda ka halaabay ay toosiyaan oo saxaan saxid ay ku sameeyaan. haddaba golahan haddii ay damceen inay siyaasadii qalloocsaneyd saxaan, xasan sheekh maxamuud ma ka aqbala xukuumadda xasan sheekh maxamuud inay iyadu wax qalloocisay oo wax ka khaldameen ma aaminsan tahay? ma la sixi karaase ma la sixi karaa? waxaan leeyahay marka golahan horta way fiicanta, waan soo dhaweynaynaa, laakiin golahan wax badan kama bedelayaan. sababtoo duqa xasana dictator buu noqday oo xoogaa wuxuu la soo baxay dictatornimo. farmaajo dictator waagi la dhahay, farmaajo dictator ma ahaynba, mid ka daran ayuu horta xasan sheekh maxamuud la soo baxay. marka golahan way fiican tahay, waa arrin fiican, waa rag qadiyad leh, waa rag wadaniyiina, waa rag u istaagay, arkay dalkoodu meeshuu kusii dhacayo, waxay u dhaarteen bay ahayd, laakiin waxba kama bedeli karayaan hanaanka geedi socodka siyaasadeed ee xasan uu dalka ku hogaaminayo. waa 60 iyo dhowr jir, xoogaa caqligiisu yaro doorsoomay weeye. marka waa hawlo kale unbaa u muuqda, hawlo kale qaado meel ku shub, meel ku shub anu si la dhahayo garan maayo baasha intaa dhani intaa unbaa duqa u muuqata mooyaane wax kaleeto u socda u muuqda ma jiro. dalkeena wada ogsoontiin maanta waxa ay eeday hadda ay sheegayaan xildhibaanadu waa dhab. maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalku waa kala dhaqaaqeen, xildhibaanadii iyo dowladdii wada shaqayn lahaa waa kala dhaqaaqeen. shacabkii Soomaaliyeed qoys meel buu ku haystaa, meel buu qoys ku haystaa. dowladihii jaarka iskuma fiicnin oo waxa weeye kuma fiicin Soomaaliya, hanaankeeda iskuma fiicin oo la iskuma qanacsana. marka dhan walba marka dalkeena ka eegto, dhan walba la dagaalankii shabaab waa fashilmay, ciidankii maanta waa kala taagan yahay, waxa weeye dagaal beeleedya meel walba ka qulqulaya, nin walbana reerkoodii oo la dilaya ma dhowran karo, qorigiisa intuu qaatay buu dagaal beeleedyadii ku biireen ciidamadii intuu ugu badnayd. markaad dhinac walba ka fiiriso, dalkeenu maanta badbaado u baahan yahay, dalkeenu maanta run ahaantii badbaado u baahan yahay. inagoon cidna ku duraynin, cidna ku nacaynin, cidna ku afjaafeynaynin, dalkeenu siyaasad ahaan buu u burburay maanta oo u baahan yahay in la badbaadiyo. marka xildhibaanada arintay u istaageen waa arrin loo baahan yahay, waa arrin dhab ah, eedeymaha ay sheegeen waa arrin xaqiiqo ah, laakiin wax ma dhegaysanaya ninka ay leeyihiin waan saxaynaa, wax ma dhegaysanaya. waxay noqon inay xildhibaanadu maalin walba intay soo istaagaan iyagu shir jaraa'id qabtaan, dowladdu halkaa ka saxdo, dowladdu waxaa ka samayso inay tiraahdo. sababta xukuumaddu qof walba oo waxa ay samaynaysa kasoo horjeeda waxay u aragtaa qof iyada diidan, qof dowladnimada duminaya, qof cadow oo waxa weeye midnimada Soomaaliya duminaya, qof dowladda Soomaaliya waxa weeye caqabad ku ah ayay u arkaan, saxitaan uma arkaanba. waana arrimaha sii adkaynaya xaqiiqdii ee siyaasadda sii qalloocinaya ee dalkeeni godka kusii wada ee ay usoo tari leedahay ee la isku fahmi leeyahay wey. qofku waa bini aadam, wax waa ka khaldami karaa, dowladdu wax waa ka khaldami kartaa, madaxweynuhu wax waa ka khaldami karaa, ra-iisul wasaaruhu wax waa ka khaldami karaa, laakiin waxa ka khaldamay waa in la sixi karo weye, sababtoo iyagu shaqo badan bay hayaan, hawl badan bay hayaan, dowladdii dalan bay maamulayaan, wax badan iyagu ma arkaan, wax kaletay iyagu arkaan. waxa ka khaldamaya ee gudaha ka khaldamaya dadka shacabka ayaa arkaya, siyaasiyiinta aan xilalka markaa waaweyn haynin baa arkaya. waxaa la rabaa markii la yidhahdo war halkaabay ka khaldan tahay inay wax saxaan baa loo baahan yahay. hadday wixii mil ay dhahdo markaa noqoto lama saxayo, cadow weeye, soo qabta, guryaha ugu daata, waa khaldan yihiin, siday sidaa u dheheen, dowladnimada see looga hor imaaday, waxaa la yidhaahdo dee meesha waxaa kasoo baxaya in waxa weeye qof walba suuraba uu iska yeelo, dalkuna sida uu ku dumaya wax fiicanna maaha. xildhibaanada marka arrinta ay u istaageen waa arrin guul ah, waa arrin gobonimo leh, waa arrin aan soo dhaweynayno, waa arrin muhiima, waa arrin loo baahnaa. ee ciddii ka dhegaysan lahayd baa la rabaa, laakiin ciddii ka dhegaysan lahayd ee wax ka qaadan lahayd ee sixitaanka ogolayd ee la sixi lahaa ee wadaniyadda ahayd ee muwaadinka ahayd ee dalka wixii ka khaldamay in la toosiyo ogolayd, ciddaas baa la rabaa. nimankan damu jadiid waxay iska celinayaan farmaajo, sheekh shariif, farmaajo shalay soo isagii dictatorka ahaa, farmaajo soo isagii waxa weeye cidna aan waxba ka dhegaysanaynin, farmaajo soo isagii shibta ahaa ee qoladun ku jiray, farmaajo soo isagii warqadun soo saaray wadanku eryay, wadanku rabana soo gelinay. maxaan ka dhegaysanaynaa marka? kuwa farmaajo la jiran, kuwa ha yeelin, ha dhegaysanin. waa ninkii shalay soo doortay, ninkii shalay soo doortay wey. marka nimankaas farmaajo aaban soo soconin oo doorashadan xataa laga saadaalinayo inuusan tartami doonin sida saadaasha hadda u muuqato,
ayay ka cabsanayaan oo difaac ugu jiraan oo waaba Kebla Yurur weeye Kebla Yurur qorig weli uma fargada ka bixin ninkaan bay iska ilaalinayaan wax kale iska ilaalinayaan ma jiro shaqadii loo idmaday iyo hawlihii u yaalay ee waxa soo dhan way ka mashquuleen meeshay soo saama farmaajo la jira waa qarandumis baad maqlin xaaladdu horta waa sidaa golahan cusubna waa golo muhiima waan soo dhawaynaynaa dhanka kale to maalmihii ugu dambeeyay hadal hayweyn ayaa ka dhalatay saldhig dhinaca hawada ah oo Turkigu la sheegay inuu ka sameysanayo gudaha dalka Soomaaliya saldhigan Turkigu waxaa la sheegay in uu muddo badanba ku taamayay 2021 madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaaba ku dhawaaqay in sida uu dhaqsiyaha badan Turkigu uu hawada sare gaari doono taasi oo markaasi loo micnaystay ama micnaheeduba uu yahayba in Turkigu gantaalada laga hago gantaalada plastic ee laga hago hawada laga waxa weeye lagu hago inay waxa weeye Turkigu uu sida ugu dhaqsiyaha badan ku samaysan doono Turkigu gantaaladaasi waa samaystay saldhig weyn oo geeska Afrika saldhigii ugu weynaa ah oo gantaalada plastic ee hawada laga haga ah ayay Turkigu codsadeen in Soomaaliya laga siiyo waa la siiyay baa la yiri dhinaca badda laga siiyay hagaajiskoodina waa socdaa waliba aysan si toos u bilaabanin arintaasi ayaa maalmihii ugu dambeeyay hadal haynteedu ay taagneed haddaba saldhigaasi Soomaaliya muxuu ka caawinayaa muxuu yahay sababta Soomaaliya ugu doortay Turkigu sida wada ogsoontihiinba Soomaaliya waxay ku taalaa cirifka ugu dambeeya ee geeska Afrika ayay ku taalaa bad unba xagga ka badweynta Hindiyana waxa weeye xuduud bay leedahay badda weyn ee ku wareegaysan ayuuna Turkigu markaa u dhimanayaa oo muhiimadda ugu weyna in saldhigaasi cirka uu ka samaysto saldhigan waxaa la sameeyaa waa saldhig laga hago gantaalada hawada ee plastiga hawada sare weeye plastiga hawada sare marka hawada loo diro hadduu rabo hawada ku burbur hadii la rabo meeshii loo rabay baa dam lagu siinaya oo lagu baabiinaya Turkigu marka muhiimad weyn ayay u leedahay Soomaaliyana de muhiimad kale u leedahay oo de inaguna saldhigaas wax badan baan ka faa'iidi doonaa markii saldhiga la sameeyo inaguna aan soo yar korno de saldhig kale inaguna sameysanaynaa oo waxa weeye plastigan iyo sida loo sameeyo iyo nidaamkiisa iyo waxa uu ku shaqeynay waxa soo dhan baan ka faa'iideynaa mid kale to khalkhalgelin bay u tahay dawladaha cadawga ee Afrika ee dhulkeena ku soo qulqulaya ee badaheena raadinaya marka muhiimad weyn buu inaga inoo leeyahay ma garanayo dhinaca caafimaadka saameynta uu hadhow yeelan doono waa arin iyadana in la isweydiyo u baahan oo dhaqaatiirta uu dhakhtar miya dhaqaatiirta ka jawaabaysa dhibaatada uu keeni doono ilaa waxan waa plastic waa sun hawada lagu tijaabin badda lagu tijaabin dhulka lagu tijaabin waa dhulkeeni wax inaga difaaco badan ma haysana marka taasi lama garanayo marka ma garanayay waxa hadhow ka imaan doono dhinaca caafimaad darro ama caafimaad ka imaan kara garan mayno kale waa laga taxadaray oo shirkadii samaysay way un ka taxadartay inuusan dadka dhibaataynin wadamada waaweyn oo dhan way leeyihiin oo saldhig noocaas oo kale taa way leeyihiin Mareykanka oo kale bariga dhexe uu ku leeyahay meelo badan buu ku leeyahay adduunka dhan buu ku leeyahay marka waana gantaalada plastic ee hawada weeye marka arintaasi marka hadal haynteedu way taagneyd welina bilowgeedii si sax uma bilaabanin weli waxa la sheegay heshiisadii inaysan weliba aysan gabagaboobin waa arinta marka hadal haynteedu baraha bulshada ay ka taagan tahay ee samaysinka Turkigu uu doonayo inuu saldhig weyn oo noocaas uu ku yeesho gudaha dalka Soomaaliya waynu eegi doonaa wadayaal wixii ka soo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii alla idmo